joogo haddii lagu soo duulo Soomaaliya 500 kul wiil baa intii maano diyaar inay ku dhintaan ana idin sheegay dhageysta calool adeeg Soomaalida laga rabaa dani calool adeeg baa lagu yaqaanaa lafta gareero ha cabsan wixii hadda ka dambeeyo qorqoro soo istaag حسن شيخ محمود وداشة كذا فرض ضي الدبلوماسي لو ما باهنا دبلوماسي بلن كور وراق الدون كلهم وراق لو ما باهنا وما هذا كعي ماشين جوجا او نين كستانا يا قبر كستانا معي منصب كذا aad baan ugu faraxsanahay inuu isbedel fiican ka dhacay oo doorashadii waqtigeeda aad ku qabatay nabad iyo maxay ahayd horumarna hadda la soo diyaarinayo waqti badan isuma heli doono waayo nin kasta mashquul buu noqonayaa anigana waxaad iga barateen markaan hadlayo waxaa yaryar oo aad adag inaan ku hadlo maanta waxaa loogu talagalay meeshan waxaa weeyaan waa celebration basically waan wixii aan soo marnay maanta waa حفلة لكن waxaan idin sheegayaa fursadan maanta madaxda Soomaaliyeed oo inta sugu imaatay aanan aaminsanahay diaspora iyo regionka iyo wadanka sida maanta la isku imaaday inaan hadda ka horeyn dhicin waxaan uga faa'iideysanayaa wax yar idin sheego خير حبك ما دبل لكن شر وتوجهاي قبل ككلية وجمهورية الصومال كمده وما أنت حر وحويان بونتلاند قبل هذا كله دم بمس حقوق إذا ما أجنبي أي نحتي جوجا أما الشباب أو من كان خوارج تأكل عشرين أدبر وقفر حسناي xilkeeda gooni oo khaasana buu jiraa adiga iyo gobolkan Puntland ayay waajib weyn ka saaran yahay sharafta Soomaaliyeed inaad qayb weyn ka qaataan si loo soo celin lahaa yaan la fududaysan waxyaabaha ka dhacaya adduunka hadda waqti hore waxaan sheegay aniga Soomaali in la doonayo in gabigeedaba la laqo oo laga farabato oo dalkan iyaga ka suulaan oo qoomad kale maartay qoomiyad kale lagu beero waan fogeysanay berigi oo suurtagal ma aan dhahnay laakiin wixii aan sheegaynay hadda cabsideeda way bilaabatay haddaad ogtiin hadiidan ogeen Mareykanka intuu hadda yahay meeluhu u badan yahay waa wadan maslaxoog lagu qabsaday oo Mexico laga qaatay iyo Isbaaniyolka laga qaatay كوريسي مركي علي بيستين كان لقى قادني لكن مركن دمبر والله قتي لويزيانا والله قتي ألاسكا والله قتي باناما كانال وادقرنا يسان تاريخ ديسة غوانتانامو باي waxay ku taala wadanka la yiraahdo Cuba dadkii wadanka lahaana xaq uma laha maanta oo xoog baa lagu haystaa markii hore oo ay gacantooda ka baxaysayna agreement yar oo hadda mid la sheegay oo kala ay gacantooda uga baxday Soomaaliya taariikh badan waxay soo martay baa jirta aad hal loo xisaabtamo hana la isu imaado madaxda gobolada siiba maxay ahayd gobolkan iyo gobolada kala central government-ka dadkii hore xilka soo wada qabto hadda meeshan wada joogo dhibkaas laga hortaga wax badan baan ogahay aniga oo aan la ogeyn idinka wax badan baan ogahay waxaan ogahay hadda ka hor in la keenay hindisa la leeyahay Soomaaliya labaha loo qaybiyo qaybna hal raaciyo Kenya qaybna hal raaciyo Ethiopia oo waliba ay diyaar u ahayeen all those things were basically were the niceties of diplomacy but the reality of the matter is wadanka in la wareega la rabaa meeshana waxa iga muuqata fudeed baa iga muuqda mujtamaca guud in la kiciyo ciidamada maxay xal degdeg la geliyo hawada laga xiro dhageysta waxbaan idin sheegay ciidamada ajnabiga oo nagu jiraan oo wadanka ka imaadeen la iska saaro haddaad go'aano adag Soomaaliya qaadan weydo meel aan laga gaari karin ba hadda loo dooni doonaa
lafta gareen kheer allah hasiya wuxuu yidhi aniga la haystaanahay waad maqlaysaan Soomaa uma baahni buu yidhi jaajuus in la ii soo diro albaabka la ii fadhiyaa waddankaada nin sheegtay baa ciidankiisii waddanka hadda uu ku dhex jiraa kuma jiri karo waa in la yidhaahdo waa inay ka baxaan haddaad go'aano adag qaadan weydaan qorqorow lafta gareenow daniyow war heedhaha war waxaan annaga aragnay idinkana idiin muuqata ilaahay haddaad taqaanaan war miyay maqashaan war daniyow kheer allah ku siiya adi keli waa xor arrintan ay too bartamaheeda ha la fadhiisto ninba ninkuu ka maqnaa haddii waraabo u imaado oo soo gala cidda horta cidda way heshiisaa markii waraabaha la iska fiijiya ayaa haddana dib damba loo xisaabtamaa waddankii waa lagu soo duulay waxaan u imaanay annagoo idinla joogno waxaan ognahay oo fara badan baa jira waxaa la yeelayaa Soomaaliya isku tashada meeshaad moodaysaan wax idinma jirto in laydaan tirtiraa la rabo waxa lidin quuri laayahay nimcadan baa lidin quuri laayahay khayraadka waddankiina ku jira adduunka meelay ku jirta ma laha baddaad haysataan meel adduunka laga haysta ma jirto qabiilka aad tihiin oo halkoo qabiil oo Soomaali la yiraahdo cid qabta ma laha waxaad yeelaysaan anigu waana iga tahay maanta fursad bay ii tahay inaan la hadlo waan igu soo noqoni ilaa meel kale si kale oo noo bannaan ma jirto midda kale aan idin sheegi maalinka lagu soo duula Soomaali ani Kenyaan baan ahay wiilka Gaaris joogo haddii lagu soo duula Soomaaliya 500 oo kul wiil baa intimaano diyaar inay ku dhintaan ana idin sheegay dhageysta caloladeeg Soomaalida laga rabaa dani caloladeeg baa lagu yaqaanaa lafta gareero ha cabsan wixii hadda ka dambeeyo qorqoro soo istaag Xasan Sheekh Maxamuud oo daasha kala farada badan diblomaasi looma baahno diblomaasi badan kuwa waraag adduunka lagu waraagayo looma baahno ummadaada kici meel kasta maxay ku dhacday inuusan mudaaharaad ka dhaceen waxaan xamar ka ahayn Soomaaliya oo dhanbo maxay ku dhacday inuusan ka dhaceen ilmaadeeryaalo waddanka badbaadiya ilaahay hadda taqaanaan ani waan sii duqoobayaa waqtigana wuu sii socdaa hadduu dhibiga dhanka Kenyana anoo jooga Kenya ayaan baarlamaanka intaan shirnay baan ku niri looma dhawaan kara territorial integrity Soomaaliya war aniga ajnabiga habaan ka xabsanayna maxaad ka xabsanaysaan idinka war maxaad ka xabsanaysaan warkaca halla badbaadiya dalka waa loo soo jeestay khayr allah idin siiya walaalayaal khayr allah idin siiya garab baan idin nahay annaga